video wuxuu ahay Minnesota Muslim ee rumayso marka kulligeen waxaan dareensanayn jagadan ay soo banaanaatay inaan u baahnayn qof Muslim oo adag inuu jagada sayidna ugu fadhiisto aadaan ugu faraxsanahay dadka inay kalsooni igu qabaan aniga ay go'aansadeen aniga diraan booskiisa waxaad kursigan ku guuleysanaysaa xilli Mareykanka dadkoodu ay aad u kala qaybsan yihiin isla markaasina Muslim nacay badan u jiro xilligaas inaad guuleysato ee waxa mas'uuliyad والله waxaan u maleynayaa guusheena inay ka turjumayso dadka in ay diyaar u yihiin wax cusub inay suubiyaan dadka inay diyaar u yihiin inay xasuustaan wadankaanayt inuu yahay wadan ka shaqayn jiray ama ku dadaalayay in dadka uu soo dhaweeyo waxaan u maleynayaa hadda in dareenkaasi jiri doono dadka ay aaminsanaan doonaan in wadajir aan wax badan ku suubin karno in walaaltinimada ay muhiim tahay in annaga oo wada socono waxyaalo badan ay noo suurtageli karaan waxaad tegaysaa golaha koongareeska Mareykanka waad og tahay madaxweynaha dalka Mareykanka gobolka Minnesota yimid Soomaalidana si kulul u weeraray habeenkii halkaas aad tagto madaxweynuhu ka qudbeynaya fariinta darasho fariin weyn dadka badanaa campaign-kayga ku jiray waxay dhihi jireen inta kaliya aan xiisaynayno waxa waaye dadkii uu isku dayay wadanka in uu ka joojiyo inay imaadaan oo hadda noqonayo dadkii sharciga asiga ka soo dejin lahaa marka intaasay kaliya aan u malaynayaa inay ku filan tahay It's an exciting night. It's been a really amazing journey. We've had really great opportunities to have a conversation across the district to really talk about what direction we wanted to take our country. And tonight, throughout, not only in my race, but throughout the country, people are choosing hope over fear and unity over division. And it's a really exciting opportunity in a time when Somalis are on the Muslim ban to be sending a Somali refugee to Congress. Minnesota is sending a clear message, and it's an exciting opportunity. Ilhan, any message for the women? Ilhan, any? واتاي تاوديالتاسي waxay ahayd Ilhan Umar oo VOA u suura gelisay inay fursad siiso ay kula hadasho kadib markii la doortay isla markaasina ay noqonayso gabadhii ugu horeysay ee Muslim gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya isla markaasina gabadhii kale ee iyaduna Muslim ay ku biirta golaha Koongareeska ee wadanka Mareykanka dabcan sidaad u jeedaan Soomaali fara badan ayaa caawa halkan isugu timid iyo waliba dadka kale ee Mareykanka oo dhammaantood aad ugu faraxsan inay Ilhan ka mid noqoto golaha koongareeska ee wadankan Mareykanka waxaan jeclahay haatan dadkii halkan isugu yimid Soomaalida mid kamid ah inaan soo dhaweeyo bal isagana dareenkiisa aan wax ku weydiiyo iga waran caawa maxay uga dhigan tahay Soomaalida muslimiinta ku dhaqan Soomaalida wuxuu magacay waa Maxamed Cabbaas Geelle Soomaalida wuxuu uga dhigan tahay ma sha Allah waa farxad noo soo hoyatay in White House-ka Mareykanka nala tumatalo haddaan nahay Soomaali Muslim baan dambe socon maayo Donald Trump dadkan ugu galwad dambaan waa salaamaya dunida muslimka waata Donald Trump godkiisa dabcan uguma geli kartid waxa halkan ila jooga nin isagoo dhalinyaro ah oo xabadkay u qoran tahay waan soo codeeyay bal iga war adigu farxadda dareemayso wallahi caawl ma soo koobi kartaan jeer aniga magacay waa Mustafa Xamed Jibriil waxa ku sugan magaalada Minnesota gobolka Minnesota magaalada Minneapolis soo caawl ma soo koobi caaw farxadda kaliya ma waxa ummadda Soomaaliyeed u jeedaan caaw faraxsanta because waxa faraxsanta waxa weeye gabadhii koowaad oo Muslim ah oo Soomaali ah meesh u socotay waqti Washington marka wallahi aad baan faraxsanahay inka fiican aad baan maasantii waqti qaaliga waa aad baan maasantahay nin dhalinyaro isagoo halkan ila jooga oo dabcan rajo wanaagsan malaha isna ka qaba inuu mar uu guuleysan doono magacaaga magacayga Abdullahi walaal waxaan caawisa u jeedaa waxaan isku soo barnaamijka dhamaanteen fad lagu dabaaldagayo guusha walaashay Ilhan Umar ay gaartay noqon doonta gabadhii ugu horeysay Soomaaliyeed oo wax waaye kursan doonta wax waaye Koongareeska Mareykanka ku matali doonta waa guul u soo yeetay Soomaaliyeed oo guul u soo yeetay muslimka ku nool gobolkan waa faraxsanahay dareenka lama soo koobi karo walaashay waxaa la qaybsanaynaa aad baad u mahadsan tahay sidoo kale nin isagoo dhalinyaro ah ayaa halkan ila jooga walaal magaca adigana guuleed Maxamed oo mahadsan tahay marka hore VOA dhan waa salaamaya marka hore waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa fariinta horta ku socota Donald Trump haye Donald Trump maanta la hadlay ana kaliya lama hadlin dadka gobolka qaasatan District 5
buuna ku faraxsanahay gabadha la doortay ku faraxsanahay aniga oo markii labaad oo doorasho ka qayb galo xamido doorasho ka qayb galo Mareykanka joogo 18 sano xoogaa waa joogo waa markii labaad aan ka qayb galo markaan hadda waxa igu sii dheer tahay waa markii hore shaab si loo barto donation campaign la dhiibo waa markii hore saciidana dhiibo macnaha waxaan dareemay qof iyo hadla aniga يعني waxaan leedahay kaliya ma codeyne qarashna waa u adeegsaday doorashada inaad dad soo saaro kaliya si qof iyo hadlaya jirkii hadlaya baa meesha iibid marka hawsha la fududaa baa soo tahay ninkan kale ayaa isaguna dadkii safka ku jira kamid ah soo dhawaad adiga halkan imaanaya marka hore magacaaga ii sheeg adiguna aniga magacayga waxaan dhahay maxay Cabdisiid Aadan waxaan ka madax dadkii ligeeshka ah Ilhaan Cumar isla markaasna daris baan ahay waa isla qaanay dhowr jeer weydiiso ay waxay tiri ka waran ma ku guuleysan karaa meeshaan haaba ay taraayid waxaan ula tagay Keith Ellison wuxuu yiri ma indhoos garay qofta ku habboon tahay haaba ay saasa marka Ilhaan uu rajaynahay waxaan rajaynayaa inay aad ma sanad waxaan rajaynayaa dad fara badan oo aad la hadli doonto iyaguna in ay sidaas oo kale noqon doonaan dadweyne badan ayaa halkan jooga dabcan dadka caawa halkan jooga waxa kamid ah fanaanka caanka ee Dalmayare oo isaguna ka sokow inuu meeshan heese ka qaaday oo xaflad Ilhaan loo dhigayo dabcan wuuna soo codeeyay laftiisa Dalmar marka hore adigu ku soo dhawaanay barnaamijka caawa iyo dareenkaaga iyo sida ay doorashadan kugu tahay boqolkiiba boqol caawa habeen farxad noo wada leh dhammaantayo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto Ilhaan kaliya kuma guuleysan dadka Minnesota waxay u noqon doontaa cod dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto that's why uu kaliftay inaan anagoo shaqo ka soo wada baxno soo cararno oo garab istaagno garabkeedana taaganahay iyadana waxaan ka rajaynaynaa xilka loo doortay inuu Ilaahay ku asfuro dadkana ay wax u qabato insha Allah aad baad u mahadsan tahay Dalmar sidoo kale caawa waxaa halkan aad u jooga dadka shaatiyada ama jaakadaha ay wataan Ilhaan Cumar magaceedu ku qoran yahay ninkan isaguna waxa uu kamid ahaa dadkii caawa dhan aan arkay oo horay gadaal mar walba u soconayay magacaaga adiga oo ugu bilaabaya caawa shakhsiyan adiga waxay kaaga dhigan tahay wallahi niyo aniga waxaan bartan timir ayaa la dhahaa dagaalkan horaan ugu soo jirnay waxay aniga iga dhigan tahay waxa waaye waxaan hore u arag weeye waxaan gabar Soomaali ah oo Islaam ah oo laga doortay oo Congress-ka loo doortay weligeed ma dhicin waxay iga dhigan tahay taariikh cusub oo noo bilaabatay oo gabdhahan aniga dhalay gabdhahayga maashaan keenay caawa waxay iga dhigan tahay taas keentay inaan saddexda gabdhood meesha keeno waa taariikh cusub weeye maxaad ka rajaynaysaa Ilhaan iyo dadka kale Soomaaliyeed la doortay in ay qabtaan ama ay u qabtaan bulshada Soomaaliyeed wallahi dadkeenu waa dulman yihiin sanadkii 2016 waxa la doortay Donald Trump oo ah nin dhib badan oo dhinaca immigration-ka iyo waxa waaye islaam nacayb ku jiro waxaan aaminsanahay gabadhan waa gabar yar waa la fiirtay laakiin wadnaheedu intaanu leeyahay way la dagaalamaysaa Donald Trump waxaan aaminsanahay Donald Trump waxa waaye inay wax badan waxa waaye waxa waaye samayn karto ayaan aaminsanahay Donald Trump islaamka ma jecla waxa waaye immigration-ka ma jecla dadka badan ma jecla marka gabadhan intii oo dhan way tahay marka waxaan dareemaynaa waxaan aaminsanahay inay waxa waaye la dagaalami doonto Donald Trump markii ay tagto Washington waad aad baad u mahadsan tahay ninkan isaguna dhalinyarada ah oo kamid ah dadkii soo codeeyay ayaan jeclahay isna inaan dareenkiisa ila wadaago iga hor adigu maxaa dareemaysaa wallahi shucuurteyda aad bay u kacsan tahay waxaan dareemayaa in aan guul gaarnay khaasatan guul aan gaarnay Soomaali ahaan anagoo ku sugan Minnesota muddo ayaa Soomaalidu halkan isku dayeen in ay ama cod dhiibtaan ama ay soo baxaan waxaa marar badan la dhihi jiray inay codeeyaan baa lagu qasbi jiray inay Soomaalidu ay dadka hadda doortaan maxay kugu tahay horta in aan soo baxno oo aan codeyno marar badan baa wuxuu nagu ahaa wax oo aan calashan waajib weyn naga saarneen laakiin hadda codeyntii waxay noqotay wax shakhsiyan noo saameynaya anaga khaasatan haddii aan nahay dad ku nool cariga Mareykanka oo ku nool qaxootinimo ama immigrant marka waxay u ahayd wallahi wax arin weyn oo maanta dhinaceena aan ka gaarnay in aan soo baxnay aan codkeena muujinay in aan la hadalnay golo walbo ha ahaato golaha baarlamaanka oo Mareykanka ama dhinac walbo si aan u tusino inaan nahay dad weli oo hay codkeeda soconayo aad baad u mahadsan tahay isaguna hadda waxa halkan jooga nin kale oo dhalinyaro ah Soomaaliyeed isaga ayaan fursad siinayaa dabcan dadka codkooda ku gortamay baad kamid tahay sidaan u jeedo oo waad soo codeysay adna haddaad ila wadaagto dareenkaaga iyo farxadaada walaal horta magacaygu waxa la Jamaal Shuuri Geedgale dareenka kaliya caawarta halkaan keenay waxay tahay inaan ka qayb inaan xaqiijiyo Ilhaan inay tahay qofkii ugu horeeyay dumar ah Soomaali ah Muslim ah
ee u carara jaga noocaasa xaqiiqatan waxaan ka lahaa laba himilada koowaad aniga ilhaan waxaan wadaagnaa in xero qaxooti ku soo koray taasi marka waxay idrinsiinaysaa inaan aniga laftigayga gaari karo riyo noocaas oo kale midda labaad waxaanahay aabe waxaan rajaynayaa gabadheeda yarta mustaqbalka idil inay ayadana gaari karto himilo noocaas oo kale taa inaan xaqiijiyo ayaan caawa halkaan u mid ilaahayna waxaan uga baryaa inuu ilaahay ku guulaysiiyo arrintaas inuu ilaahay ku guulaysiiyo noqotana mid dadkeeda u shaqaysa insha allah ka sokow himilooyinka wanaagsan ee aad sheegtay maxaad ka filaysaa waxyaabaha aad isleedahay waxaa la doortay gabar muslima sidoo kale gabar iyo wiil kale oo muslima ayaa aqalka gobolkan loo doortay waxyaabaha aad isleedahay dadkii kale ee gobolkan joogay ma aanay qaban oo adiga iyo dadka kula fikirka kula midibka kula aragtida ay u qaban karaan maxay xaqiiqatan waxaan aaminsanahay ilhaan inay u diyaarsan tahay inay qaban karto waxyaalo fara badan labada arrimood aniga aadkaan u doonayna waxay tahay islaam naceebka heerkaa gaarsiisan inay wax badan imijkaas maraykanka laga aaminsan inay wax badan ka bedeli karto midda labaad inay wax badan ka qaban karto shaqo abuurka aniga waxaana qof bulshada ka dhex shaqeeya runtii waxaan ogahay inay jiraan arrimo fara badan oo xagga dhallinyarada shaqada ka haysta arrintaas waxaan aaminsan inay wax badan ka qaban doonto waxaan kaloo aaminsanahay in arrimaha guryaha oo runtii ayada laftigeeda dhibaato kale ku jirto inay tahay inay wax ka qaban karto saddexaas arrimood dartood waxaan aaminsan ilmaha inay tahay qof kartideeda leh awooddeeda leh aqoonteeda leh una furfuran inay bulshada Soomaaliya wax u qaban karto aad baad u mahadsan tahay daawadayaal haddana waxaa dhinacayga joogta Siciida Shaaciye oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa isla markaasina muddo ka shaqaynayay sidii haween Soomaaliyeed ay u soo bixi lahaayeen waxna u noqon lahaayeen dabcan guushu ilhaan kaliya maahan adiguna dadka guuleysada caawa ka mid tahay marka koowaad ka gabar Soomaaliyeed ahaan hambalyan ku leeyahay Thank you so much kulligeen waa adeeg xataa ugu jirtaa waa tahay waxaad iiga warantaa Siciida Shaaciye caawa guushan u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota iyo guud ahaan muslimiinta adiga shakhsiyan maxay kaaga dhigan tahay runtii wax ma aha wax yani farxad aan soo koobi kara ma aha waxaan ahaa dadka ugu horeeyay reer Minnesota ilhaan waqti dheer baan aqaanay ilhaan kaliya dad badan baa soo baxay waxaa soo baxay hodan xasan waxaa soo baxay siyaad cali waxaa soo baxay maxamuud nuur waxaa soo baxay ilhaan oo aanan yani dinaay garayn karin waxay ii tahay hididiilo iyo yani dhiirigelin aan dareemayo waddankan xuquuqda iyo sharciga iyo citizenka ayna siiyeen inuu yahay mid aan wax ku qabsan karno maadaama aad baad mahadsan tahay daawadayaal taasi waxay ahayd Siciida Shaaciye oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada caawa wuxuu ahaa habeen farxad badan marka la eego jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota iyo sida ay caawa u dareemayaan farxad miisaankeedu aad u sareeyo maadaama ay gobolka Minnesota laba qof oo Soomaaliyeed ay golihiisa Congress-ka ka mid noqdeen isla markaasina golaha Congress-ka ee Mareykanka ay ka mid noqotay Ilhaan Cumar oo gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya oo haddana qaxooti dalkan ku timid oo golahaasi ku biiraysa dabcan waa habeen Minnesota iyo Soomaalidaba taariikh u leh waa VOA oo Minnesota idin kale tan iyo kulan dambe nabadgelyo